Und ein Franzose zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Das für Terrorismus zuständige Strafgericht in Bagdad befand die 22-jährige Frau und den 55-jährigen Mann für schuldig, sich der Terrormiliz IS angeschlossen zu haben. Die verurteilte deutsche Staatsbürgerin war bereits zuvor mit einer Gefängnisstrafe belegt worden wegen illegaler Einreise in den Irak. Sie ist die Tochter einer Deutsch-Marokkanerin, die ebenfalls im Irak wegen IS-Mitgliedschaft zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Gegen den heutigen Urteilsspruch kann Beschwerde eingelegt werden. Die Botschaften Deutschlands und Frankreichs beobachten das juristische Verfahren. Die Europäische Union setzt den Handelssanktionen der USA gegen den Iran ein Abwehrgesetz entgegen. Es tritt morgen in Kraft und soll europäische Wirtschaftsunternehmen schützen, wenn sie die Sanktionen ignorieren. Das haben die EU-Außenbeauftragte Mogherini die aktualisiert wurde. أنت وشاكدي كن ديلا كن داي أيا الله إنك شاكينا إن شاء الله دقون كي قوليستي مركز الشهر لها إن شاء الله سونا دوادا دمانتين إن شاء الله مركز بقول قارتينا شاكدا بالله يا شاكا آد يا آد وغسل بدن هداد غسل ويسمى أنتي شهر هذا الوعي لنا مركز الشهر قري si aad markaa u aragto waxa aan ka sheekeynayo waxay yihiin insha Allah biidni Ilaahi al-Kariim sheergareeya markaad 100 gaartiina sheekada bilaaba waa sheeko 30 qof iyo 50 iyo aan lagu bilaabi karin waxaa la yiraahdaa kun dile kun daaye doqonkii guuleystay ama fulagii guuleystay maayo aada u yartiin enerjiga iga dhamaynina أنا بدأتين وي كونتن كليه جار وادين بالله كونتن هدد جارتين ما أهن ما أنت هرب لايف وحلا جرا هذليو ما أهن وحين كلا هذليو هرب لايف ما أهن نوتريشن ما أهن وحكله يا 14:34 Uhr die Verkehrslage mit Staus und Behinderungen ab 6 Kilometern Länge. A3 Nürnberg-Passau zwischen Sinzig und Regensburg-Ost 6 Kilometer Stau. A3 Frankfurt-Köln zwischen Bad Camberg und Limburg 6 Kilometer Verkehr. A7 Brückenau-Wildflecken 6 Kilometer Stau. A8 Salzburg-München zwischen Bad Aibling und Irschenberg 7 Kilometer Stau. A8 Salzburg-München zwischen Irschenberg und Holzkirchen 8 Kilometer. A8 München-Salzburg zwischen Bayern und Irschenberg 9 Kilometer. A61 Venlo-Koblenz zwischen Mönchengladbach-Nordpark und ما شاء الله أسيب بدنيسي يس هذا بالله يا إن شاء الله A92 Deggendorf هذا دمانتي إن شاء الله بإذن الله الكريم Freising-Ost 8 Kilometer Stau und ما أنت واحد كذا شاكينا يا شاكا دي هذا قصر بدن شاكدي كن دي لكن داي أرت قف يقان من كشرة شاكداس يا مغلى شاكداس أرت كن دي لكن داي دقن كي جوليستي أما فلان كي جوليستي شاكدا يا مغلى كن دي لكن داي wax maqlameen ku jiraan sheekadaas adaba sheekadaas aan kaga sheekeynaya maantay insha Allah meel halkan aan u socdo intaan ka gaarayo biidnillahi alkariim bari baa waxa jiray nin la yiraahdo Kundile markii hore adigu magac kale u lahaa laakiin mar dambe Kundile la baxay ninka marka nin fulayo oo ahaa oo aad iyo aad fulay u ah marka fulaynimadiisa waxa soo ogaaday ninka inuu fulay yahay waxa soo ogaaday ardadii dugsileydii iyo kuwii iskoolka iyo dadkaas marka ogaaday fulaynimadiisa
hadday markaa ciyaalka dugsilayda ku ogaadaanna way ku dhamaatay oo waxa weeye markay ka soo baxaan iskuulka ama dugsigaba adigay ku soo marayaan oo ku tuuriyeynayaan waxyaabahaas oo dhan marka ninkan inuu fulayahay ayay ogaadeen waana nin weyn oo xoog badan oo fiiro weyn oo aad looga cabsanaya haddii wajigiisa la arko marka laakiin ciyaalkii waa ogaadeen ninka fulaynimadiisa kadibna waxay sameeyeen inay markaa tuuriyeeyaan oo markaas ay markasta tuuriyeeyaan isku sheegaan oo iskoolka markii laga soo daayo ama dugsiga asaga ay soo maraan oo ay shaqo ka dhigtaan isku ballansadaan ay markaas sameey jireen ciyaalkaas ninkii naftiya qabatay ciyaalkii meelo ka gala ayuu waayay marka naftii ayaa qabatay wax alla wuxuu sameeyay ayuu aqoon waayay waxa dhacay marka nimbo u tagay nimbo wuxuu ku yiri oo sirtiisa ku qarsaday wuxuu ku yiri warniyahow ciyaalkii aan meelan ka gala laay nin weyn oo fulayana waa ah fulaynimadana ilaaha markaas ii dhaliyay oo waxaan sameeyay ma aqaano xooggan aad u jeedo wax ka jira male marka ila taliyo tale isiyo ciyaalkan maxaan seen iska yeelaa ciyaalkan ninkii tala fiican uu siiyey wuxuu yiri niyahow taladii u dambeysay ayaan ku siinayaa hadda talada ka faa'iideysa weysana aday ku taala taladu siiyey marka waxay noqotay wuxuu yiri meeshaan horta ciyaalku kugu barteen waa inaad iskaga guurtaa meelan laga aqoon u guur tuulo kale iska deg nin xoog weyn oo feero weyn oo laga cabsanayaa tahay laakiin fulaynimadan yaa dib dambe lagaaga dareemin halkaa waxaad ku xirataa maro ay ku qoran tahay kundile kundaaye maro yaroo aduu saasoo ugu xiro kundile kundaaye qofkii kaa hor yimaadana waxa uu yiraahdaa jilcina macnaha sida u fiiri oo indhaha ku gaduudi si markaa dadku ay markay kundile kundaayana akhriyaan xoogaagana arkaan qaabkaad u fiirinaysana arkaan ay kaaga cararaan وعدن بوكو هويسانيسا iyo ciidan boo ku soo haweysa kartaa ma jirto neonu taladaasan ku siinaya ayuu yiri taladaas dad qaad raali ahaada waa la soo wacay raali ahaada hay soo wicinina intaan marka koolka ku jiro insha Allah sheeka fiican maanta wada sheer gareeya marka ninkii taladii uu qaatay calaay xaal taladii ninkii uu qaatay wuuna baxay oo wuxuu iskaga tagay meeshii ciyaalku ku yaqaaneen maradiisii marka kundile kundaayana halkaas uu ku xirtay kadibna wuu baxay oo maradiisii uu markaas iska qaatay inuu kundile kundaayo halka ku dhagsado ayuu bilaabay wuuna baxay wuxuuna aaday marka magaalo aan laga aqoonin oo aan laga garanaynin meeshii uu tagay geed weyn uu xaarxaartay marka kundile kundaaye meeshaas uu degay kii soo marba saas uu fiiriyaa oo yiraahdaa waa cararaan ciyaal iska day dadkii waaweynaa ka cararay ma loo soo dhawaa karaba saasan baa loo fiirinaya waa laga cararayaa saasan baa loo soo fiirinaya waa laga cararayaa saasan baa loo soo fiirin laga cararay maalintii dambe ayaa waxa loo sheegay boqorkii magaalada haysta waxa lagu yiri warniyo meesha wad iska fadhidaa nin la yiraahdo kundile kundaaye oo weyn oo ilaaha weyn xoog badan ayaa markaas waxa lagu yiri niyahow yimid oo meeshii jooga oo magaalada soo galay aduguna waxba ma ogidaa la yiri waa iska fadhidaa marka maxaa xala maxaa xal ah bis wuxuu yiri ninkaas hala igu yeero oo ninka waa in la igu yeeraa si markaas aan u ogaado bal wuxuu yahay iyo maaragta xaaladiisu waxay tahay ninkii waa loogu yeeray waa loo yimid waxa leeniyahow waxa ku yeeraya boqorkii magaalada kundile kundaayo waa lagu wacayaa markaas uu Siiriya ay wacaya boqorkii magaalada ku wacaya niyahow waliba dadka u sheegaya si yar oo ixtiraam leh ugu sheegayaano way ka baqayaan iyadoo laga baqayaa marka lagu yiri niyahow arrinkaas marka laga doonaya wuu baqay marka nin ciyaal ka soo cararay oo lagu yiri waxa ku yeeraya boqor ade waa dareemi kartaa moogtahay xaaladiisa nin fulaya oo ciyaal ka soo cararay oo lagu yiri
boqorkiya ku wacaya markaa wuxuu damcay inuu ka cararo meesha oo is yiraahdo bal ninka telefoon ku soo siiyay meesha waa in iskaga cararto oo isagoo markaa isle meesha iskaga carar ayuu hadana wuxuu is yiri niyahow boqorka ma iskaga tagtaaho oo ma iskaga tagtaa ma iska soo fiiridaa boqorkii uu tagay boqorkii markuu arkay boqorkii aba cabsadaba halka waxa ugu qoran kundila kundaaye xogaana markuu arkay boqorkii laftiisa cabsi gashay oo isagu laftiisuna saas yiri oo waxa weey wuxuu muujiyay dareen inuu markaa nin adag yahay boqorkii wuxuu ku yiri nin dhageyso hadii kundila kundaaye lagu yiraa annaga magaaladan aad timid waxa jooga la yiri 3 nin oo waxa weeye magaalada nafta u keenay oo qaatuc dariiqa oo isbaara dhigta oo dadka gabdhaha maryaha ka furta marka waxa lagu yiri niyahu 3 nin naga qabo anaga kun hanoo dilin kunna hanoo dayni 3 nin hadaan naga qabato magaaladan waxbaad ka noqonaysaa wax jagaana lagu magacaabaya insha Allah naga qabo 3 nin marka nin caruur ka soo cararay 3 nin oo qaatuc dariiqiina oo isbaaristayaala miyo wax ka qaad odagii tala ku cadaatay okay uu yiri waan soo qabanaya wuu baxay isagoo rabo marka inuu iska cararo oo de magaalada iskaga baxo ilaa 3 nin uma tagi kare ayaa ilaahay amarkiis isagoo rabo inuu galabto kale magaalada iskaga cararo iskaga baxo ayaa 3 nina waxay maqleen in nin kundile leeyahay magaalada yimid godkooda biyo ugu soo galeen maanta nimanka marka waxa weeye loo soo dirana ay ogaadeen markay ogaadeen ayay waxay dhaheen nimayo 3 ninkan hadaan u tagno 3 waxa laga yaabaa inuu iskaana dhaafiyo marka hal nin aan u dirno ninkaas ergaha noogu tago ha u sheego inaan joojinayno waxyaabiina ma aragtaa qaatuc dariiqnimadii iyo isbaaradii iyo wixii aan sameeyeen aan joojinayno toobad keenayno noogu sheeg ninka ayuusan soo aadin kundila ninkii asagoo cabsanaya marka oo raba galabta inuu baxo ayaa ninkii midba u yimid wuxuu ku yiri kundilow 3 nin oo lagu sheegay ninka mid ahaan ahay 2 nin oo kale soo diray marka sidaa darteed niyo waxaan rabnaa inaan nacafido wixii aan sameey jirnay iyo shaqooyinka waa iska dhaafaynaa markuu arkay ninkan inuu nin jilicsan yahay oo cabsanayo oga awooda gashay ogda gundile markaasuu yiri 2 nin oo kale aaway markaasuu yiri 2 nin oo kale waa baqeen oo xaggay joogan ana soo diray suur iigu yeer ayagana waa jaaw arkay moogtahay kii waayuu yiri uu cararay nimankii uu tagay wuxuu yiri ninkii waa dheersan yahay wuxuuna ugu yiri 2 nin oo kale iken marka de 3 naba meesha waxa weey waa noo dhamaatay oo ninkii inuu cunur rabaa xal kala ma jiro marka sidaa darteed aan iskaga cararno meesha oo wada wax kale oo noo yaala iyo war kale iyo gar kale ninkaas aan ula tagi karnay sheeka kale ma jirto marka xalkeenu waa inaan meesha iskaga guurnaa 3 bari markuu joogay oo wax u yimidna waayay xaaladuna caad iska taa kundile ayaa loo yimid markaas la yiraahdo oo kundile ma sha Allah war nimankii iyo magaaladii waa laga waay nimankii waa iska carreenba xaq Allah ibu carreenba marka waxa loo hambalyeena markaas le ma sha Allah hambalyo kundile warni nimankii maxaad ku sameeyay ma dishay ma cuntay meedkoodina tuseed wax yeeshay markaas uu leeyahay markaas oo isaga laftiisa awood yeeshay oo furiinimadii waa ka sii baxay okay waxa leeni waa ku guuleysatay 3 nin hal challenge ya ku dhiman hal arin kaliya ku dhiman waxa jiraan la yiri tana ka daran ninka waa guuleysan doona insha Allah barnaamijka la share garay dartiin aan sii wado waa ina share gareydin ninki waxa lagu yiri niyo horta 3 nin waad qabatay waadna mahadsan tahay si fiican aadna yeeshay laakiin waxa jira la yiri libaax dad iyo duunyo dhameeyay magaaladan oo waxa weeye casarkii dadka cunaya oo duhurkii cunaya oo habeenkii cunaya oo dadkii waxa weeye dad iyo duunyo dhameeyay libaaxa haddaad naga qabato kundilow ilaa u daahimaysidii libaaxa haddaad naga qabato boqortooyada adaan ku dhiibnay wax kastana adaan lagu dhiibaya magaaladan adaa ka arriminay libaaxi haddaba maxaa is leedihiin libaaxi kundile ma qaban doona nin caruur ka soo cararay oo waxa weeye haddana la yiri libaax
ciidamadii joogay waddanka oo dhan iyo laga ay u taag waayeen ayaa la yiri Kundile ciyaalkaas waa inaad qabataa haddaba Kundile wuxuu sameeyay tala fara waa ka baxday libaaxii waxa hadii la sheegana uu isku xaaraa wuxuu yiri waxa waan soo qabanayaa marka wuxuu rabaa inuu magaalada dhanba ka cararo fakado miriqdiisa la arag ayuu hadana rabo go'aansaday marka wuxuu yiri waxa isiidiin uu yiri faraska fardaha u dheereeya toddoba birinayaan guryaha laga soo bixi macnaha wuxuu rabaa intuu sii cararayo iyo socodkiisa iyo inaan qofna sheegin oo la dhihin Kundile wuu cararay wuu baxsaa ka sii socday marka toddoba biri wuxuu yiri ma la soo bixi karo dagaal culus ban galaya libaax iyo wax weyn laba libaaxna haday meesha isku dagaalaan dhaawac badan ka dhala kara guryaha ayaa laga soo bixin faraska fardaha u dheereeyaan halasi wuxuu inuu fakado faraskii fardaha u dheereeyaan loo dhiibay waxa la yiri cid guri ka soo bixi kartana ma jirto cid xoolo soo bixi kartana ma jirto toddobada bari waxa way sahaydiina dadkii ha sii qaataan biyaha la sii dhaansado guryaha ayaan laga soo bixi Kundile bahashi faraskii uu qaatay uu baxay wuxuu rabaa inuu fakado marka qasalkii adduunka sagoo sii socda habeen iyo maalin markuu sii socday ayaa waxa ka hor yimid libaaxi libaaxi ayaa ka hor yimid Kundile marka uu libaaxi ka hor yimid ayuu wuxuu sameeyay marka geed weyn ayuu wuxuu maagay faraskii inta ka degay Kundile oo cabsaday geed fuulay geedkii marka wuxuu maagay geedkan ka fuul libaaxan aanta xaaladda ku dhamaatay libaaxiina geedkii soo hoos istaagay marka geedkii ninkii oo tafay oo kor u saaran ayaa libaaxiina hoos soo istaagay libaaxi kor u fiiriyay kor markuu u fiiriyo libaaxi marka waa libaaxu miciya dheer dheer leh afku kala qaaday markuu halaaqooday oo afkiisa iyo libaaxi arkay Kundile fulayo ciyaal ka soo cararay inta fulaynimadii ishay waayo ka soo kor dhacay libaaxi dusha looga soo dagay waa laga soo kor dhacay marka qofka fulayaahu fulay haduu ku dilo ama ku qabto waa ku dhamaatay libaaxi marka laga soo kor dhacay wuxuu sameeyay Kundile dhabarka inta saas u inta fuulay ayuu halka ku dhagay meesha libaaxu burushka ku leeyahay ku dhagay wuxuu siir hadaad ka fuuqdo oo libaaxaas aad ka fuuqdo waa ku dhamaatay waa ku cunaya marka fulaynimo darteed ayuu ku dhagay libaaxana halkiisaas lama taabto waxa la yiri libaaxi markuu arkay isaga laftiisu in la saaran yahay oo tunkiisana la hayo ayuu waxa weeye de libaax tunkiisa cid ma qabatay wuxuu siir maanta malagaaga lagu soo diray waana ku dhamaatay libaaxi carru bilaabay marka ay qaylana wuu bilaabay cararkii markuu bilaabo asaguna ku dhagan yahay wuxuu siir hadaad ka fuuqdo oo ku dhamaatay saas ugu dhagan yahay marka libaaxiina u ordaya libaaxii ordaya ayaa wuxuu galay magaaladii ayuu galiyay oo ka soo dadkii daaqadaha ay ka arkayaan ay leeyihiin waa wareey war Kundile war libaaxi oo saaran yahay oo libaaxi iyo Kundile isaastan waa nin nafu wado nafa haysa libaaxiina sida u ordayay oo isku lahaa waxaan maanta qoortaada ku dhagan xaaladaadu waa bariga dhexe sida isku lahaa ayuu libaaxi ilaa wax beer iyo wadna leh qorraxduna way kululeeday مبلغ نفتا كدعدي magaaladii uu soo galshay asagoo wada oo ku dhagan libaaxi wuu dhintay markuu libaaxi dhintay ayaa marka lagu soo yaacay oo iskor saarayeen hatta libaaxi oo dhintay kama degayo oo saaray waa lagu soo yaacay waa loo yimid waxa la arkay libaaxi inuu dhintay Kundilena nool yahay waa marka labadoodaba xaara ka socda marka libaaxi asaga ولو يمد مركو أركينو اللباح دنتاي وأسق لفتيس تدكنا إمانا أيانا الله همبلينا يوري وربيعي كان بيه الله كان بلاي وسكت بالله بينو يري هذا ورجع زال لي واشر جرائد ماشي لسكو يمدو ولا ويدي مركو حالي هرتني ونم بلايا هاي اللباحينا وادي شوا كتخلصتي مركا لكن سؤال بنكو ويديني نهي maxay tahay xaarkan ka socda iyo waxaan asaga baxal markaas uu kuleeyahay meesha laba libaax isku heshay meel laba libaax isku heshana waxaas waa yimaadaan iyo wax ka darane ka warrama xaalkiina ama dhaawaci wixii idin gaar على أي حال نينك سيدي وكو غوليستay boqortooyadii loogu dhiibay xilkii meesha loogu wareejiyay boqor asagu uga noqday sheekadina halkaas ku dhamaatay marka
haddii kundilaba guulaystay marka oo kundilaba oo isagoo fulaya oo ciyaal ka cararay oo guul gaaray inta go'aan qaatay maantay waxa weeye oo guulaystay wadan dhanna isagoo oo madax ka noqday adigoo maanta aan fulayna ahayn wax aad qabtana aysan jirin maxaa ku diiday inaad markaa adiga laftaada go'aan geesinimo la qaadato inaad adiga laftaada noloshaada wax ka bedesho inaad nutrition iyo Herbalife soo gasho maxaa ku diidan adiga laftirkaaga sheekada waxa weeye halkaas ay u socotay marka qof kasta oo ilaahay la damco inuu guulaysto wuu guulaysanaya ninka fulay buu ahaa waad u jeedin maanta fulinimadiisii haddana guul ayaa marka qof kasto ha quusanin ma ahan inaad quusato ma ahan in adiga guul darro lagu qoray ma ahan in adiga maaragtaa waxaas marka inaad quusato ma ahan wax kastaad qaban kartaa guul kastaad gaari kartaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala lixaadoo ku siiyey aqliyo ilaahay ku siiyey insha Allah sheer gareeya barnaamijkaasan maanta in kugu tala galay aad baan idin salaamaya salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh